Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Maanta waxaa sharxaynaa qaabka loo sameeyo OneXBet application. OneXBet application horta kama helaysid Play Store-ka, kaliya waxaa ka helaysaa Chrome-ka kasoo degso halkaas kasoo degso. Hadda waxaa taabanaysaa halkaas ku qoran saddexda calaamo ee sare taawo, kadibna waxaa dhehaysaa registration, kadibna waxaa taabanaysaa full account ee sameynayna waa account rasmi ah. Foomkan markuu kusoo baxo foomkan aan buuxineynaa. Surname waxaa gelinaysaa adiga waa sida username oo kale, magacaaga iyo magac labaad aad gelinaysaa. Hadda waxaa gelinayaa Bashka Cabdi. First name waxaa gelinaysaa magacaaga ugu horeeya ayaa gelinaysaa, magacaaga ugu horeeya. Ka Soomaali asaa ku dooran waa Soomaali, country waa Soomaali, region-kaagana Muqdisho waaye, region 2 na Muqdisho asaa kuusoo qabanayo. waxaad maamuli kartid maahan, marka iska geli waxba isku qasbin. Marka daatada dhalashada waa tan, daatada dhalashada waxaa gelinaysaa daata kugu habboon ayaa gelinaysaa, waayo isaga 18 wax ka yar ma doonayo. Marka 18 sano wax ka yar ma ogolo, marka haddaa ka yartaa xitaa ka badsaday. Currency-ga waxaa ka dhigaysaa dollar ka dhig. Email aa gelinaysaa, marka adiga aan hadda waxaa gelinayaa email-kayga, adigana waxaa gelinaysaa email-kaaga. waa qaabka ugu fudud ee OneXBet application loo sameeyo waay. Marka dad badan waa ku wareeraan, marka full account kaliya sameynaysaa. Wuxuu leeyahay 3 qaab oo loo sameeyo OneXBet: qaab aad ku sameysanaysid number, iyo qaab aad ku sameysanaysid email, iyo qaab aad ku sameysanaysid in one click. Marka saddexdood haddaad rabtid inaad ku sameysid oo hal mar aad wada gelisid, waxaad taabsanaysaa full markaa dhahid, lambarkiina waa ku samaysatay, email-kaagana waa ku samaysatay. Marka hadhow laguma adkeenayo lacag la bixid oo kale laguma adkeenayo, inaad lacag la baxid lagu adkeenayo. Lacagtaada caadi waa la bixi kartaa. Marka hadda waxaa gelinaynaa password, qaabka aan u gelinayo waa idin tusayaa, marka si fiican u fiiri. Marka ugu horeysa wuxuu u baahan yahay xaraf Laatiin weyn iyo xarfo yaryar u baahan, marka Laatiin yaryar. Lambarna waa ku daraysaa, calaamadna waa ku daraysaa, way fahanteen. Haddana waxaa dhahayaa copy, haddana waxaa ku dhahayaa paste, repeat password-kii hore aad gelisay aad ku celinaysaa. Markaan hadda waxaa ku dhahayaa paste ku dhahayaa. Marka promo code waxaa gelinaysaa promo code-ka Soomaaliya ayaa gelinaysaa. Promo code-ka Soomaaliya waxaa waaye SUM1XBET waaye. Marka SUM1XBET markaa gelisid, meeshaan sax saaraysaa. You confirm that you have si ku qoran tahay sax saar, tig saar, waa saaray. Hadda foomkan qaabka uu buuxiyey waa idin tusay, marka qaabkana loo buuxiyaa. Hadda wax isoo celinaya malahan, haddaa sax taabto only wuu qaadanayaa. Marka saxa dhehaysa, hadda sax ayaa dhahay. Hadda wuxuu dhahay activate ka dhig, lambarkaaga activate ka dhig. Marka activate ayaa ka dhigayaa, code ayaa lambarkaaga lagu soo dirayaa. Marka code-kaas ayaa inta gelinaysaa. Marmar qaar wuu soo dahayaa, marka haddii isla markii ay heshid fiican tahay. Marka hadduu soo daho waxaa dhehaysaa resend, only resend ayaa dhehaysaa. Aan hadda way iisoo direen, waa gelinayaa. Markaa gelisid waxaa dhehaysaa halkaan ay ku qoran tahay activate taawo. Isla markii wuxuu inoo soo qabtay username oo ka wada ID-geena iyo password-keena oo ah Bashka Cabdi plus. Marka waa ujeedaan waa idin calaameeyey. Marka waa idin tusayaa akoonka qaabka uu soo baxayo. Marka waxaa dhehaysaa next, kadibna waxaa dhehaysaa login. Password-kii waa ujeedaan, marka login dheh. Login markaa dhahid saddexda calaamad taawo, haddana waa fiirinaynaa inuu soo galay magaceeni iyo waxaa gelinay. Marka hadda waa ujeedaan inuu na soo qabtay magaceeni oo ahaa Bashka. Kadib waxaa taabanaysaa personal profile meesha ku qoran tahay taawo. Hadda waa ujeedaan inuu soo geliyay magaceeni, username-keeni, country-geeni iyo city-ga aan gelinay. Marka hadda email lambarkeena waa activate. Marka email-ka activate ma ahan, email-ka waxaa ka dhigaysaa activate,
username ma lahan, username adiga gashan karo marka wax weyn maahan, videogana dheeraanaya marka saas daraadeed haddana waa gelinaynin. haddana security setting yaa fiirinaya, security setting taabo. security setting-gana waa kana ujeedaa ilaa 3 xabaa soo gelinay, lambarkii wuuna qabayba. marka security setting-gana waa iska buuxinaysaa marka wax weyn oo dhibaato leh maahan. marka akoonkaad waa ujeedaan inuu shaqeynayo, marka lacag waa soo gelin kartaa waana ka baxsan kartaa. marka gamekan hadda intusaa ay free ku qoran tahay marka 24 saac maruu free yahay. marka hadda tijaabinayna marka hadda waa ujeedaan akoonkeena inuu shaqeynayaa marka waa full account. one xbet application horta kama heleysid play store-ka, kaliya waxaa ka heleysaa chrome-ka halkaas kasoo degso.